qof kastoo bini'aadan ah waxa uu jecel yahay in horumar oo ka sameeyo waxa uu asagu jecel yahay riyooyinka qaar oo qofka marka uu yar yahay oo ku riyooda ayaa qaarkood urumooba halka kuwa qaarkoodna aysan urumoobin hadba maxaa ka taqaanaa ciyaaryahanka hadda hogaaminaya horyaalka tenniska dheer ee Soomaaliya kaasoo horada u soo maray kooxaha tenniska dheer ee Soomaaliya ee sida Nootaay Shabeelle iyo naadiga Jaaliyaasha Elman kaasoo horada wacdaro oo kaga soo dhigay waa ciyaaryahanka hadda hogaaminaya horyaalka tenniska dheer ee Soomaaliya kana tirsan ciyaartooyda tenniska dheer ee Gifty waxa uu wacdaro oo ka dhigaya horyaalkii jimcadii ka furmay gudaha garoonka fuusalka ee degmada Shibis 12 bishan aan ku guda jirna March 2022 ayuu si rasmi ah daaha loogu rogay horyaalka tenniska dheer ciyaaryahanka ayaa labadii kulan oo ka ciyaaray horyaalka tenniska dheer wuxuu ka dhigay wacdaro waana ciyaaryahan Sakariye Maxamed Aweys kaas oo hadda u muuqanaya ififaalo ku aadan in horyaalkan loo saadaalinayo labada ciyaaryahan oo guulaha uu ka gaaray waxa qaybka ciyaaryahan Maxamed Isaaq oo u ciyaaray kooxda tenniska dheer ee Hegan iyo ciyaaryahan Xasan oo degada asagana ka tirsan waana ciyaaryahanka difaacanaya horyaalka tenniska dheer ee Soomaaliya asaguna kooxdii loolanka markii hore intoosan ka dhaqaaqin kooxaha Nootaay Shabeelle iyo Elman loolankiisa loo saadaalinayo ku dagaalankiisa in heshiis qalinka ay ugu duugaan kooxaha Gifty Star ee kooxda tenniska dheer ee dekadaha ugu dambeyntii wuxuu go'aansaday ciyaaryahan Sakariye Maxamed Aweys inuu ku biiro ciyaartooyda tenniska dheer ee Soomaaliya ee Gifty Star labadii kulan oo ka ciyaaray wuxuu guulo ka gaaray Hegan iyo dekadaha tan waxay kaga dhigan tahay in waqti xaadirkan uu doonayo inuu difaacdo horyaalka tenniska dheer ee Soomaaliya ciyaaryahan Sakariye Maxamed Aweys waxaan kula kulmay gudaha garoonka fuusalka ee degmada Shibis wuxuuna ka warbixinayaa riyooyinkiisa qaar ee cidda ku garabsiisay in horumarka maanta uu gaarsiisan yahay ee cidda waqtigan oo kaga mahadceliyay Sakariye Maxamed Aweys soo dhawaaw bal goorma bilowday horyaalka tenniska dheer waa dhawahay waxa bilaabay 2017 tenniska dhan bilaabay waxa qayb galay afar koob laba horyaal iyo mid la dhaho Muqdisho Open iyo mid oo double ah oo laba qof la isku jiray saddex kamid ah waa qaaday hal horyaal ay iga fakaday waxa qaaday hal horyaal iyo hal koob Muqdisho Open iyo hal double oo ani saaxiibkay wiil Jaafar laha isla qaadnay mise qarana baxday inta horyaalka tenniska dheer ciyaaraysa waxa baxay afar qaran 2018 waxa baxay waxa aaday qaran Tanzania wadanka Tanzania lagu qabanayay 2019 bilowgeedii waxa aaday Kenya tartan ka qayb galay oo tennis asina 2019 dhamaadkeeda waxa qayb galay hadana Tanzania mid kale oo labaad midkayga afraad wuxuu ahaa wadan Kuwait oo hadda dhow ah baxay 2021 dhamaadkeeda yaa gacan ku shii inta safarkaas dheer ah ku dhex jirtay nolosha waxa igu gacan siiyay waalidiinteeda iyo adeerkay Laash iyo macallimiinta isoo tababarayay oo ayagan dhiirigelinayay waakasa waayahay kooxaha kula guuleystay waqtigaasi degadii Gifty iska haysta maxaad ku doortay Gifty oo kooxda waqtigaasi ku daneynaysa ugu biirways waxa ugu biiri waayay heshiis waa waxaan moogtahay heshiiskiya macnaha isku fahmi weyne marka Gifty isfahanay marka waxa rajaynayaa inay si fahmi doon Gifty waayahay horyaalka difaacanaysa maxaa ka rajaynaysaa kulankaada labaad oo xiriir ah guulka gaartay horyaalka tenniska dheer insha Allah ani horta waxa isleeyahay labadeeda kulan ugu adkeed way soo dhaafeen kuwan oo ii hare kuwa hadda ka adkaa isleeyahay waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono insha Allah ma difaacan doontaa oo horyaalka ugu horeeyay Gifty Star ma kula guuleysan kartaa xil ciyaareedkan aad iyo aad ugu rajaynaa insha Allah taageerayaasha Gifty taageero maxaad leedahay ayagan waxa ka codsanaa in taageero fiican ay muujiyaan anna waxa u balan qaadaa in koob ku geedoon insha Allah qof kastoo horumar gaara waxa uu ku gaaraa in uu ka rumeeyo riyooyinkii markii asagu oo yaraa waqtigaasi in uu ku dadaalo in ciyaarista tenniska dheer ee Soomaaliya oo mar qura oo ku riyoon jiray waa asagoo waqtigan difaacanaya horyaalka tenniska dheer ee Soomaaliya ciyaaryahan Sakariye Maxamed Aweys